e-pesa waa hanaan maaliyadeed oo lacagihii caddaanka ay ka dhigaysa qaab digitalized taasoo saamaxaysa in financial inclusion ama dadku ay gaarto hanaanka maaliyadeed. e-pesa waxaa iska leh ama ay tahay product uu leeyahay bangiga IBS Bank waxaana baawargareeya ama xoojiya Somlink Telecom. waxay shati buuxa ka haysataa bangiga dhexe Soomaaliya shatiga la xiriira ruqsadiinta lacagaha taleefanada ama mobile money regulationkiisa. maxay tahay adeegyada e-pesa? e-pesa maxay soo kordhinaysaa? adeegyaduna maxay tahay? adeegyada e-pesa markii la soo koobo waxay noqonaysaa lacag diris, lacag la bixid, taleefan lacag ku shubasho, ku dukaamaysi, adeegyada loo yaqaano loans and saving ama deymaha iyo lacag aruuriska, xawaaladaha ama e-pesa dollar, sidoo kale e-pesa Mastercard qofkii inuu taleefankiisii uu ku heli karo kaarka virtualka ah meeshuu kaar caadi ka qaadan lahay qofkii inuu halkaas kaarkiisa taleefanka heli karo. sidoo kale adeegyada bangiga u dhammaystiran hadday noqonayso in akoonkii lacag ku shubato, hadday noqonayso in akoonkii lacag kala baxdo. e-pesa waxay kuu saamaxaysaa in aad gadan kartid taleefanku hadalka adoo ka gadanaya taleefankaada ama abkaada. sidoo kale waxay kuu saamaxaysaa inaad lacag u diri kartid ama lagugu soo diri karo akoonnadaada IBS Bank. sidoo kale waxay kuu saamaxaysaa haddaad tihiin team ama group ama dad isku imaado in ay tula xataa ku urursan kartaan ama aad ku samaysan kartaan lacagaha qaaraanka oo kale ku urursan kartaan. sidoo kale e-pesa waxay kuu saamaxaysaa in lacag lagu soo diri karo adna aad diri kartid adduunyada daafaheeda iyo gudaha waddanka. e-pesa waa markii ugu horeysay Soomaaliya gaar ahaan magaalada tani qofku awoodi karo in taleefankiisii gacanta shilin Soomaaliya wax ku gadan karo, dollar ahaanna uu wax ku gadan karo. waxa awoodi doontaa e-pesa marka isticmaalaysid in wiilka casayaha kaba ku casayay 2000 shilin Soomaaliya meesha ka sii lahayd 2000 e-pesa oo shilin Soomaaliya siis. sidoo kale waxa awoodi doontaa marka maqaayadaha haday dalab ku gaatid oo leeyahay 70 igu ah wax idoo laba wax ka qaataa 34 inaad lacagtii ku bixi kartid shilin Soomaaliya ku bixi kartid. sidoo kale waxay xoojinaysaa lacagtii waddanka ay xoojinaysaa waxayna saamaxaysaa ama dhiirigelinaysaa dad badan inay isticmaalaan e-pesa. sidoo kale waxaa ku bixi kartaa taleefankaada oo isticmaalaysid korontada, biyaha, iskuulka, waxbarashada iyo wixii lamid ah. sidoo kale e-pesa markaa isticmaalaysid waxyaabaha ku saamaxaysa waxaa ka mid ah inaad qaadan kartid deymo ama maalgelin waafaqsan shareecada islaamka. e-pesa sidoo kale waxaa ku samaysan kartaa aruursiga lacagaha ama waxyaabaha loo yaqaano saving. sidoo kale e-pesa waxay ku saamaxaysaa platformkeeda markaa isticmaalaysid inaad adduunyada meesha aad doonto hadday noqonayso Amazon, hadday noqonayso Alibaba inaad wax ka gadan kartid adigoo jooga gurigaada qurucaada hoostiisa adigoo jooga. e-pesa waxay kaloo kuu saamaxaysaa inaad ku bixi kartid lacagaha mushaaraadka shaqaalaha. markii la soo koobo e-pesa qofku wuxuu ku isticmaali karaa sida tan. qofku wuxuu heli karaa wax loo yaqaano virtual card. virtual card adduunyada maanta wuxuu socdaa in laga guuro waxyaabaha loo yaqaano physicalka. waxaa loo socdaa waxyaabaha la yidhahdo virtualka ama wixii oon physical aan taaba karin laakiin kuu samayn kara macnihii iyadoo physical ah. kaarkaas ayaa kugu dhex jiri doona Mastercard gudaha abka. sidoo kale sidaan sheegay waxaa ku bixi doontaa lacagaha hadday noqoto dollar ama hadday noqoto shilin Soomaali. waxyaabaha kale ku samaysan karta waxaa ka mid ah waxaa lacag dhiga kartaa kalena bixi kartaa agentiska bangiga ama agentiska leedahay e-pesa iyo sidoo kale ATM-da IBS Bank. e-pesa waxay ku saamaxaysaa in lacag aad u diri kartid laguna soo diri karo dunida daafaheeda. sidoo kale waxaad heli kartaa multiple partners dadyo kala duwan ama dad kala badan. waxyaabaha kale e-pesa ku saamaxaysa waxaa ka mid ah waxay wadataa Islamic saving and loans ay wadataa. waxyaabaha kale e-pesa leedahay muhiimka waxaa ka mid ah waladkeeda oo hadda aan sheegno oo qofka kuu saamaxayso inaad lacagtaada dollar ka dhigi kartid inaad ka dhigi kartid shilin Soomaali. waxyaabaha waxay ka mid tahay xoog kale la isticmaali karo. sidee ku isticmaali kartaa e-pesa? access noocee ah ayaad heli kartaa markii la joogo e-pesa? qofka macaamilka ah e-pesa wuxuu ku isticmaali karaa nuuca loo yaqaano xidig 777 macnaheedu waxay tahay waxaa ku isticmaali karaa taleefankaada niclaha
مو بان سمارت فون ودتid waxaa ku isticmaali kartaa taleefankaada traditionalka ama niclaha ku isticmaali kartaa sidoo kale waxaa ku isticmaali kartaa mobile application oo macnaheedu tahay isla caawina la soo degi kartid e-base inta ku qortid Google-ka ama Play Store-ka ama App Store-ka app-kan halkaas kala soo bixi kartid sidoo kale waxaa ku isticmaali kartaa web portal oo macnaheedu tahay qaab website camal ah soo gali kartid meeshii hadda taleefanaysan xataa laptop-kaadi computer-kaadi xafiiska ina kala soo gali macnaheedu waxay tahay anytime anywhere oo laga dhabeeyo marka halka fiirso waxa ku muuqata taleefankaada caadiga ku isticmaali kartid adigoo isticmaalaya simkaarka Somnet Telecom sidoo kale halka waxa kala muuqda inaad ku isticmaali kartid app taleefankaada doonto wado nooca taleefankaada rabtid wadanka rabtid joog sidoo kale waxa ku isticmaali kartaa computer-kaada ama xafiis ha noqdo midkaada personal ka noqdo inaad ku isticmaali kartid meel kasta aad joogto e-base oo kula joogtaa hareerahaada ayayna joogtaa e-base waxa la yiraahdo partners waxa waaye waxyaabaha bahwadaagta la ah e-base waxyaabaha bahwadaagta la waxa kamid ah dukaanada caadiga oo alaaba laga gato hadday noqonayso dukaankii caadiga xaafadda ku yaalay hadday noqonayso supermarket-kii farmashii waxyaabaha laga gato goods and service ka dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha bahwadaagta la akoonkaada lacagta kugu jirta ama e-base lacagta kugu jirta halkaas aad ku bixi kartaa sidoo kale waxaa jira doona wakiilo ee leedahay e-base oo loo yaqaano e-base agents agentsigaas waxay ku saamaxayaan in lacagtii akoonkaadii bangiga xataa lagu shubi karo ama akoonkaadii e-base lagu shubi karo sidoo kale waxay ku saamaxayaan in lacag laga soo saari karo akoonkaadii e-base ama akoonkaadii bangiga waxyaabaha kale samayn karta e-base gudaheeda waxaa kamid ah partnerskeeda kambaniyadu inay samayn karaan in lacago fara badan ay ka diri karaan e-base dhexdeeda haddii kambani aad tahay ugu baahnida bangi la soo xiriirtid waxaa samayn kartaa portalkaadii ama lagu siiyey ama accesski lagu siiyey waxaa kuu saamaxayaa in lacagahaadii ama fankii aad diri rabtid dhammaan inaad halkaasi ka dirtid waxyaabaha kale oo samayn karta waxaa kamid ah inay e-base kugu xiran tahay ATMs-ki dhammaan ATM-da IBS oo ilaa hadda ka badan 40 xogaa ku sii dhow waxa way waa kala bixi kartaa lacagtaadii waana ka maamula kartaa mastercard-ka kugu xiran hadda waxaa ku xiran bangi ahaan IBS bangi ay ku xiran laakiin waxaa lagu soo xiri doonaa dhammaan bangiyada dalka waana adeeg u furan dhammaan bangiyada Soomaaliyeed e-base markaa fiiriso asaaskeedu wuxuu ku dhisan tahay adduunyada maanta horumartay waxa loo yaqaano SDGs oo adduunyada dhan United Nations ay soo saareen ilaa dhowr iyo toban ah kuwaasoo saamaxaya in qof kasta la meeshaas wax ka wado e-base ahaan xitaa marka la sameeyo waxyaabaha lagu dhiso waxaa kamid ah qodobada qaar ay kamid ah SDGs-kaas waxay base u yihiin diplomatic e-base tusaale kale marka la fiirsho kale yareynta faqriga e-base waxay qayb ka qaadan doontaa in faqriga la yareeyo waxay saamixi doontaa in dad badani loo abuuro shaqo waxay saamixi doontaa in dad badani ay helaan lacago sidoo kale waxay qayb ka noqon kartaa horumarinta dhaqaalaha sidoo kale e-base waxaa base u ah innovation kan wuxuu kamid yahay ama abuurka ama ikhtiraca wuxuu kamid yahay adduunyada waxyaabaha maanta la fiirsho iyo sidoo kale strategic partnership halkaas waa adduunyada Soomaaliya keen Soomaaliya waxaa jira qorshe 2020 kii la dejiyay ilaa 2024 soconayo oo loogu talagalay wax loo yaqaano Somali National Plan ama qorshaha horumarinta Soomaaliya qorshahaas naftirkeeda e-base qayb ay ka tahay e-base marka la fiirsho waxaa base u ah mabaadi'da iyo nidaamaadka uu bixinayo Central Bank of Somalia haddii ay noqoto waxyaabaha la xiriira anti-money loan sidoo kale waxyaabaha la xiriira trade financing iyo waxyaabaha la xiriira dhammaantood waxay leedahay nidaamkeedii iyo xeerarkeedii ayay leedahay halkan waa adduunyadii waxyaaba isku waafaqda waayo 3 qodob ilaa 4 qodob kamid ah e-base ay u tahay waxyaabaha hal abuurkeeda qayb ka tahay aad loo maasantiin